Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga maanta videoga waxaa isku daya inaan hadlo videogan wuxuu ku saabsan yahay sida aan iskugu diyaariyey ramadaanka guriga u nadiifiyey u kala hagaajiyey soo daawasho wacan ani bil kasta markii bilowda adii kasoo galo waxaan jeclahay inaad toonta iyo kabsarta isku jarjaro hadaa barbarooni iyo baamiyana soo iibiyana sii jarjaro freezer hoos aan geliyo Soomaalikan waxaa waxeenay intaan waxeenna waxaa rabay inaan sii waxeeyo inkastoo aan ku jira faraha kabsartii waxaas toontii inaan waxeeyo si yaro jecelna kabsari toon ka sameeyay hilib oo macaan soo intaas waxaan tusinayo ujeedin xawaaji badan basal shiishid hilibka iyo xidhanayaan isku dar waatana kabsartani sheega waa dhaqaaqooda hore toontii waa fiifiiqa wataa baamiyin waa ka iyo waxa ku daraasan jibil yar isku wada dara insha Allah kooda hore kabsarta shiidan hadartin video exact si fiican u sii qalab maamahina waxaa ku jirta noos hot kor hor u sameysa u diyaarsado toontii kabsarta wilkayga yarna bilaa waribiin way xaawiya soo inuu caawinayo malaya iskaga dayanina cajiinka pizza qasayna tan way kaxday toontii wixii isku shiiday waatan dhamaatay baamiyin waa jarjarinta kuriday barbarooni kana jarjara bacda kuridaa sidoo kale hoos aan gelina fiiskoos waatana pizzada kacad waa fidiyey so saano ay kaata markay dhamaatane aad ay u macaan tahay maalinkii labaad oo arbacada ahayd waxaa rabay inaan guriga nadaafada bilaabo howsha ay kala dhamaato waxaan ka bilaabay albaabka meesha ugu horeysa inaan nadiifiyo boorka qaada xaaqo oo aad tirtiro sida ujeedin Salaamaaleykum waxaa sameeyay roogga dhulka qaaday habasii waa jafay si fiican oo dhaqo balkoonka inta dhigay kursigii meesha ka soo jiiday dhulka aad u nadiifiyay dhulkana waxa sida u jeedin sida u tirtira waxa waaye gacanta ayaan ku tirtiray caadiga ma waxaan u fararsaday si uga faqoosa qadadan dhulka ku dhigay inta la arkeenin soo meelaha boorka wax dhan hoos qarsoon ayaa ka soo fujiyay waxaa kaloo sameeyay daaqadaha ayaan tirtiro fadhiga si fiican ayaan nadiifiyay markaas kadibna waxaa u sii socday jikada oo aan wixii mikrowga kooda hore nadiifiyay waxaa kaloo wixii kursiga cuntada cunug ku cunayaan si fiican u nadiifiyay hoosh intii la fududaatay ayaan ka bilbilaabo kooda hore saas ayaan isku dayay wixii saabuun ayaan si fiican ugu dhaqay sida ujeedin ka bixiyay baasho ku fadhiisto cunuga waxa ku tala jira inaan dhaqo makiinada kaliya dharka haddana waxaa soo wixii alaabta dhan kor ku jirtay cuntada ayaan soo wada bixiyay waxaan u baahnayn inaan tuuro waxyaalaha u baahnayna si fiican u toosiyo markaas hadda soo wada bixiyay wixii dhan armaajooyinka ayaa tirtiraa markaas haddana meesha fargeetooyinka ayaa soo bixin wayaan isku dayay inaan nadiif inaan ka dhigo
kaasa meesha farkeetooyinka wada toosiyey si fiican ayaan waxaan u baahnaa oo tuuray waxyaalaha kale meelaha kala dhigay wax kasta meeshuu leeyahay ayaan sameeyey leeyahay loojitin qaanitan tan ka hooseysana waa wixii ku jira alaabta waaweyn ila farkeetooyinka waaweyn qaandooyinka waaweyn waxaa la dhahaa so kana fadhigaan oo toosiyey roogii meeshiis kusoo kukulay nadiifay noqotay wixii dhan meeshii alaabtana soo kala aruuriyey oo kusoo celiyey roogii dhan ayaa ka qaaday sida ujeedin oo kala qaybiyey qolka dhan nadiif waata noqday haddana waxaan iga tusay jikadiisa noqotay markaas soo wadaalay soo toosiyey soo alaabtaas alaabta cunuga weynaada waaye waxyaalaha qaar u baahan oo kala saara meelaha u sameynaa intana waxaa geliyey xawaajiyaashii banaankiisa uuli jirin laakiin taqaanada ayaan ku xareeyey si meesha eber nadiif u noqoto meel kasta dhalaalay noqotay kana ujeedin alaabtii meesha saanay noqotay intaba alaabta isticmaaleeno inta badan maalmaha intaan guriga joogno intana waxaa ku talagalay alaabta oo waxyar qaaska dadka oo marti xamal markay imaadaan waxaa kaloo waxay meesha cuntada lagu kariyo qaanadaas kale ayaa harka geeska weli waxay laakiin meesha cuntada waxay soo bixiyay ayadalan waa nadiifiyey haddana subaxii ku xiga waaye khamiistii waxaa wixii maantana daaha ayaan soo dejiyey markaa quraxna kadib oo kana daayaa xira meesha daaqada markaa nadiifiyey jikada nadiifay noqotay aadaan toosiyey firaaqa jikada la noqotay awal meesha wax badan ay uuli jiraad waa ka wada qaaday waa kaasaa meesha eber ayaan ka dhigay alaabtii badneed u ooli jirtay waa kala yareeyay meesha dhan inta waxyaraa u baabahana isticmaalin la ku raabay meesha nadiif ayaa noqotay maasha allah waarkeena intaansan kusii haytoono jikadana waa taas daaqadana nadiif ayaan ka dhigay daaha waa dhaqay waa ku xira mar kale meelahanana boorka waa ka qaaday kanana meesha banaanka hore waaye markii la arkaayo nadiif ayay tahay isqulaha iyaan hadda waxaynoyaa waa ka aruurinaa alaabta isqushayan markaa waxay kadibna waxaa isku dayaa meesha maqaansiinka yar qolka yar dharkina toosiyo soo maanta waxaa ku tala jiray inaa waxaya maqaansiinka yar qolka yar oo alaabta ku wada aruurino inaa kasoo bixiyo dharka iyo waxa la tuurayo waxa raba ina iibiyo cunuga weynaaday bas inta isticmaali doona haduu adig inaa kala saara alaabta daarna waa dhaqooyaa gadaal oo jitin waxaa dhaqooyaa bastooyinka waaweynay so yes hadda waa kala saarooyaa wixii bacda madow waxaa ku ridaa waxaan u baahneen la tuuraayo meeshaasna waxaa ku ridaa baakeedkana waxaa yariiska u baahan doono so yes haddana waa ujeedeen meesha waa kala tutusiyey inta waxaa dhigay alaabta oo nadaafada ayaan ku simay qolkana wixii yaryaraa waa weynka yaalna ka aruuriyey waxaa kaloo liiraba inaan la sheekereeyo dharka saa u bilaabo inaan u laalaabo Marie Kondo haddaa maqasheen sida dharka loo laalaabo aad ayaa la iskula tutuwaa meeshadan boos badana ku bilaabo ku banaanana ujeedin had soo kala tusiyey jeenisayaasha meel fanaanadaha qabowga gees yar fanaanadaha kuleelka geeskan yar hadda cayaarta hoos dhan ay hartay dharkeygii waxaa seeta sidaas ayaa u laalaabay inta hoos ujeedin waa laalaabay sidaas yaryariska insha allah waan tusi waa kana soo wixii ku xigay waan tusaa meeshaan ujeedin baatiyaash meel gaar ah gurigan isticmaalayo aadaan isku laalaabay hadda dhar waxaa jira dhaqooyso inta waa koonooyinkii wixii dhan meeshaas hoosena waa shaatiyaashii waxaas xiranaya ayaan geliyey
intana waxaa waa waxa oo dhaadheerka ayaan soo suray. Intana imika wax lagu kukulaa bustooyinkiisa shukulaanadiis. Meesha hoosna qamaarada ayaan dhigay oo inta badan aan isticmaalin. So yes, soo jeedin si fiican ayay u fiicantaa. Meeshaasna waa dharkayga oo private course. Intana qaanada maxaa geliyay dharka oo sariirta bedka ayaan laalaabay si fiican. Meesha dhan ayay deeqay. Meesha ma sii deeqi jirin dharkaan. Hadda markaas sida yaryar u laalaabay si fiican ayay u deeqay. aad ayay u mahadsantihiin intaa fiirsateen videoga intaas uu ku eg yahay. Insha Allah Ramadaan Mubarak, Ramadaan Kariim, waan is arki doonaa. Thank you.